xubin ka tirsan jirka haweenayda ninku hadduu taabto ay isla markaaba jeclaanayso miyaad garanaysaa oo ragga in badana ka mid ay ka khajilaan waxaa la yidhahdaa waa xubinta ugu fudud ee lagu kasbado haweenaydu inay ku jeclaato walow ninkaasba xoolo iyuusa haysan hase yeeshee xubinka hadduu taabto haweenayda ka mid ah si waxay u jeclaanaysaa kal iyo laaba haweenaydu waxaa weeye qayb aan qaybsamin xaaladaha dhammaan oo ka mid ah mujtamaca waxayna haweenaydu tahay aasaaska ama gundhigga bulshada sidoo kale waxay tahay haweenaydu meesha maskaxda bulshadu ay ka soo aasaasanto waxayna ka mid tahay haweenaydu makhluuqaadka kuwa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan taariikhda soo socotay adduunyada xaalado kala duwan bay haweenaydu soo maraysay ilaahay baa abuuray rag iyo dumar si midka kale kan kale u dhammaystiro ilaahay baana u fududeeyey aalado ay isku soo jiitaan ilaahay baa tabaaraka wa tacaala u fududeeyey waddooyin ay u maraan si ay nolol dhammaystiran u wada aas-aastaan oo dunidan guudkeeda intay ku nool yihiin ay ku noolaadaan sharaacida ilaahay soo dejiya dhammaan waxyaalihii ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa si loo nidaamiyo calaaqada iyo xidhiirka ka dhexeeya rag iyo dumar oo loo wanaajin lahaa si labada nooc ay awooddooda iyo wakhtigooda ugu bixiyaan raalligelinta ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo wixii ilaahay u abuurtay sidaas oo ay tahay haweenayda ooma baahna wax weyn ama wax mucjiso ah ama hadal la isku dardaray oo la qurxiyey oo laakiin gudihiisa uu eber yahay si ninku u fahmo nin yow kaama rabta haweenaydu hadalla waaweyn aad isku xirtid iyo mucjisooyin inaad u keentid iyo hadalla la qurxiyey laakiin uurka ka maran inaad u keentid si ay kuu fahanto haweenaydu intaa kaama rabto hadallada noocaasa iyo dhaqanka noocaasa kaa dooni mayso adugu laakiin waxaa is leedahay waxaad la timaadaa falsafo iyo erayo laysku xirxiray si aad u fahantid tilmaamaha haweenayda oo aad u soo jiidatid taasi kaama rabto waxaweyn kaa rabto waxa weeye caqli fakeraya inaad yeelatid qalbi wax garanayana inaad yeelatid wacyi aragti dheer lehna inaad yeelatid intaasunbay kaa doonaysaa waxaase isweydiin mudan xubinka ugu weyn ama ugu badan ee haweenayda aad ku soo jiidan kartid wuxuu noqon karaa oo ay noqonayso in haweenaydaas inay nafteeda ku dhiibto waxaa weeye xubinkaas qalbigeeda ninku hadduu taabto haweenayda qalbigeeda ou gaaro haweenaydaas isla markiibay jeclaanaysaa marka qalbigeeda si xaqiiqo ah haddaad u soo taabatid haweenayda way ku jeclaanaysaa walow xoolo yaada haysane waxayna noqonaysaa mid kaa daba dhacda ee nin yahow maskaxdaada ka shaqaysii khiyaaliga iyo beentana iska daa iyo dhalanteedka aad ku nooshahay qalbigeeda ha burburin qalbigeeda ha dhaawicin qalbigeeda ha garaafayn u ilaali oo u nadiifi oo u xafid haweenaydaas abidkaa ku hilmaami mayso weligaana way ku jeclaanaysaa haweenaydu ma kaa rabto inaad u dejisid hadallo aad isku aad-aadisay oo ayada aad doonaysa inaad ku gaadid ama geeraarro iyo erayo kale inaad isku soo duudid oo aad u qaadid haweenayda si ay kuu jeclaato intaa kaa dooni mayso haweenayda waxay doonaysaa nin qalbigeeda soo taabta iyo caatifadeeda iyo dareemayaasheeda kadib waxay dareemaysaa inaad adigu noqon doontid qalbigeeda waxaa ka soo burqanaya kii fahmi lahaa tusaale oo kale haweenaydaada nin yahow waxaad u noqotaa mid dhegaysta oo weliba si wanaagsan u dhegaysta oo dhegta u raariciya weliba hadalkeedana ihtimaam iyo muhiimad siiya walow hadday doonaysaba ha ka sheekayso arrimo adiga agtaada aan muhiim ahayn hadday doonaysaba arrintaa ha ka sheekaysee dhegta u raarici si wanaagsanna u dhegayso ha ka sheekaysa hadday rabto waxaan adiga qiimo kula lahayn laakiin ayada qiimeeya qalbigeeda marka waxaad gaaraysaa inay ku jeclaato si deg deg ah hadhihin waxaa ha ka sheekayn naga daa hadhihin nanaga daa waxaad ka sheekaynaysid hadhihin weligaa waxunbaad ka sheekaysaa hadhihin weligaa arrin aan qiimo lahayn baad ka sheekaysaa caqligaadu waa sidaas hadhihin dhegayso markaad dhegaysatid dhegtana u raaricisid ku dareentana inaad muhiimad siinaysid walow waxa ay ka sheekaynaysaa ama ay kuu sheegayso wax yarba ha ahaadeene way ku jeclaanaysaa qalbigeeda ayaad dhex degaysaa kadibna waxay noqonaysaa nafteeda inay ku siiso oo ay kugu kalsoonaato walow xoolo yaada haysane dhammaantiin waxaan idiin rajaynaynaa nolol wanaagsan oo deggan waa idin jecelnahay dhammaantiin meel kastaaad joogtaan jasaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu